السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa seetay production uga barateen barashada cilmiga computerka iyo xogaha muhiimka xisaabinta xisaabaadka ganacsiga noocyadiisa kala duwan. Aanu guda galnaa casharkeena maanta. Intaynaan guda galin hore waxaan soo qaadanay casharkeena 66aad. Casharkana wuxuu noqonayaa sida hortaada kaga muuqata casharkii 67aad. Aanu guda galnaa casharkeena maanta waxaynu casharkeena ku soo qaadan doonaa sidee ayaynu uga celin karnaa qof haddii uu ka iibsado alaabtaas oo markaasi account hayd alaabtii oo uu ka noqday qofkaasi oo ku bedeshay alaab kale ama alaabtii tiradeedu oo markaasi wax laga celinayo laba shay kala nooc mid la celinayo sidee ayaynu sameyn karnaa marka hore waana iib soo samaysaa iib soo samaynta markaad ku dhufatid shayga ayaa dooranaysaa iibka ku sameynaysay waxa weeye saliid macsaro tira ahaan waxaan ka iibsanaynaa tira markaasi 5 kartoon way 5 kartoon oo kartoonkiiba waxaan siinaynaa 92 wayhay 92 saata marka uu siino waxaan oran doonaa okay waxa soo dooran doonaa cidii markaasi qaadanaysay waxa qaadanaya nin la yiraahdo Udug Same shop ayaa naga qaatay accountkiisa ayaanu gelinay accountkiisa marka uu gelino qaab account gelinta horena soo dhiganay marka uu gelino safe aan yiraahno halkaas inuu joogaa haddaba bal aynu soo dalacno ninkan financial kan tagina update ayaan tagi doonaa update marka tagno waaynu halkan soo galaa Udug Same oo qaatay markaasi alaab qaatay Udug Same alaabta uu qaatay Udug Same 460 buu qaatay haddana way ku noqonaynaa mid kaleenu asnaga wax ka iibinayna ka kale waxa la yiraahdaa make sell bentagina ka hor intayna alaabta qorin waxa soo dooran karnaa ciida aynu ka iibinayno oo gaarhaye ayaa isna tagi doonaa saliid macsaro isna ka iibinayna gaarhaye tirada saliid macsarada ka iibinayna waa tiradan ilaa iyo 12 CRT ayuu iibsaday 12 ka CRT waxa nooma yaalaan 12 CRT 8 CRT baa la helayaa 8 CRT ayaynu qoraynaa marka 8 way 8 CRT samarka u qornay okay baan oranaynaa 8 CRT ayaynu markaasi ka siinayna 92 kartoonkiiba 92 marka ka siino waxa weeye $736 waayay sidaas ayaan accountkiisa ugu gelinayna ninka la yiraahdo gaarhaye marka accountkiisa saa ugu gelino 100 ka horaan ku lahayn safe banana safe marka nahno gaarhaye waxa uu doonay in markaasi tirada wax laga celiyo oo intayna waxa ka celin ayaan ku dalacnaa qaybta update quickbooka qaybta financialka halkan waan soo galaa account cusub oo gaarhaye marka hore balance baan ku lahayn halka balance gaarhaye ayuu soo galayaa totalka aan maanta ka iibinay waayahay gaarhaye wada aragtaa 736 ayuu iibsaday waxaan doonayaa in ka celino markaasi waayay weyn ka celinaynaa sidana ayaan u tagnaa si aan uga celino waxaan tagnaa sales history-ga waana ku dhufataa waana gaarhaye soo hesha gaarhaye wanagan ku taagan waxaana referred gaarhaye naga celiya gaarhaye waan ka celiyay buu leeyahay customer credit payment waa laga celiyay marka saa looga celiyay gaarhaye waxaad ka samaynaysaa copy halkaas aad ku dhufanaysaa alaabtii inta laga celiyay la iska madeynay wuxuu yiri iga celiyo halka 8 soo qorteen 5 soo qora waayahay halka copy ku qorantay refer marka tiraahdo daaqada ba soo baxaysa payment on account in markaasi celin ay ka dhacday meeshii copy ayaad oran copy marka tiraahdo intii hore ayaa ku soo copy mise hore ugu qortay 8 ahayd 5 baad u bedelin kartoon 5 kartoon marka halka u bedeshid sidalka character kartoon baad u bedeshay okay baad oran dabeetana account ayaa ku celin account marka ku celisid safe ayaa si oran dabeetana safe only baad oran haddaas ayaa soo dalacin labada transaction ee qaadashada celinta iyo soo qorida hadana labadaba waa in soo galaan meesha waana intan la celiyay iyo 460 soo qoray ay sooftaa credit mimo hada reegti waa celin
invoice na waxa weeyaan qaadasho payment na waa bixin. marka invoice ka u horeeyo waxa 736 dabeetana credit me ma dhacday in la celiyo dhammaan deyntii uu qaatay. dabeetana waxa dhacday invoice hadana in la qoro 400 iyo markaasi 60. عشر كيناني هلقا سنوغو جوغا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.